ruushka ayaa xoojiyay dagaalka uu ku hayo Ukraine. waxa uu dib u soo celiyay ciidanka Ukraine ee ku sugnaa gudaha dalkiisa oo dib u soo saaray. waxa uu qaadayaa weerar dhif iyo naadir oo ku wajahan Kiev caasimadda Ukraine. waxa uu qabsanayaa deegaano cusub. intaasi waxaa barbar socday inuu cabsi yar lagu arkayo furimaha dagaalka. waa ciidanka Ruushku isticmaalayaan. dhanka kale waxa Ukraine ay isku diyaarinaysaa inay khasaareheeda yarayso. inay difaac dhanka cirka ah hesho. si ay uga hortagto weerarada aan kala joogsiga lahayn ee Moscow uga imaanaya. warbixintan waxaynu ku eegaynaa waxa hadda ka socda dalka Ukraine, xaalka dagaalka, gaashaanbuurta NATO oo talow caddahay, iyo sida uu ku dhammaan kara dagaalku imika Ruushku muuqdo inuu gacanta sare leeyahay dhowr bil oo la isku dhaganaa kadib. adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store. Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay. ciidanka Ukraine waa laga soo saaray gobolka ay ka qabsadeen Ruushka ee Kursk. inta badan gobolka Kursk ayaa galay gacanta ciidanka Ukraine aroortii 9kii bishii 8aad ee sanadkan. in ka badan 100 maalmood oo ay deegaanadaasi ka tirinayaan Ukraine waxay xaddii iyo Isniintii lumiyeen dhulkii ugu badnaa oo ka mid ah gobolka Kursk ee dhaca galbeedka Ruushka. waayista dhulka ay haysatay Ukraine ayaa ku yimid kadib markii ciidan aad u badan oo dhanka Ruushka socda ay gudaha u galeen difaacyadii Ukraine, halkaan ay ku qasbeen inay dib u riixaan. sidoo kale cadaadiska Ruushka uu saaray gudaha dalka Ukraine ayaa keentay in ciidanka Ukraine ay dib isu ururiyaan sifa aysan dhimasho badan ugu dhicin, maadaama imika ay u egtahay in Ruushka uu qabsanayo deegaanada muhiimka ee ku yaala bariga Ukraine ayna ku jirto magaalada istiraatiijiga ee la yiraahdo Borovsky, taasoo haddii ay ku dhacdo gacanta ciidanka Ruushka ka dhigan in dhammaan ciidanka Ukraine ee gudaha u galay dalka Ukraine ee halkaasi ku dhimanayaan ama qasabtay inay isku dhimaan ciidanka Ruushka. waa kuwa ku sugan gobolka Kursk, taasoo haddii ay dhacdana ka dhigan in ciidanka Ukraine ay jabeen sidaana ay ku lumiyeen dhulkoodii, taasoo Moscow u sahlaysa inay si fudud qabsato magaalada Dnipro ee gobolka Donetsk, kadibna ay u gudubto magaalada dekedda leh Odessa. haddiiba uu Ruushku qabsado Odessa ma sii socon doono dagaal dambe, waxaana ciidanka Ukraine ay si toos ah u noqonayaan kuwa galay gacmaha Ruushka. inkastoo ay weli tahay xilli hore in la sii saadaaliyo in ciidanka Ruushka uu qabsan karo dhulweynaha Ukraine, haddana sida ay hadda wax u socdaan waxa ay u egtahay in ciidanka dalka Ukraine ay la kulmayaan guuldarro aan filasho hore oo badan aan laga qabinin. colaadda cusub ayaa sare u kacday kadib markii Kiev ay u isticmaashay dagaalka gantaalaha ridada dheer ee Mareykanka iyo Ingiriiska, taasoo soo dadajisay carrada Moscow ayna dhankeeda ku garaacday magaalooyin badan oo ka mid ah Ukraine. gantaalka la holin la yahay ee la yiraahdo Oreshnik, kaasoo si daran difaacyada hawada uga dusaya. arrin kale oo keentay in kafada dagaalku u janjansato xagga Putin ayna dareemaan guuldarro ka badan tii hore ayaa ah warinta sheegaysa in ciidanka dalka Kuuriyada Waqooyi ay ka dagaalamayaan furimaha gobolka Kursk ayna yihiin kuwa si xooggan u caabiyay duulaankii ay Ukraine rabtay inay ku mashquuliso Ruushka iyo ciidankiisa ku siisiqaya gudaha dhanka galbeed ee dalka Ukraine. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay ila ka taliska guud ee ciidanka Ukraine oo sheegaya in ciidanka Ukraine ay lumiyeen 40% dhulkii ay ka maamulayeen gobolka Kursk kadib markii gudaha ay u galeen halkaasi horraantii bishii Agoosto ee la soo dhaafay. gantaalaha Faransiiska taageero miyaa mise hoosaasin dagaalka Ruushka iyo Ukraine waxa uu galay waji cusub kadib markii Faransiisku uu ku dhawaaqay inuu taageersan yahay in Ukraine ay adeegsato gantaalaha ridada dheer ee Faransiisku inay ku garaacaan gudaha dalka Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska gaar ahaan wasiirkeeda Jim Parot ayaa xaqiijiyay in dalkiisu uusan aqoonsanayn wax khadacas la dhaho una wax kasta ku taageeraya Kiev, isagoo intaasi ku darin xitaa haddii ay macquul tahay in loo diro ciidanka Faransiiska dalka Ukraine ay diyaar yihiin si ay uga hortagaan isfilinta Ruushka. erayadan waxay keeneen falcelin caraale oo ka timid Moscow, halkaas oo ku xigeenka madaxa golaha ammaanka ee Ruushka Dmitry Medvedev sheegay in gantaalahooda Oreshnik ay awood u leeyihiin inay garaacaan caasimad kasta oo Yurub ku taala haddii aan la joojin taageerada la siinayo Kievna ay qaadayaan argoosi xanuun badan, maadaama gantaalaha iyo hubka lagu soo daabulaya dhanka Ukraine ay waxyeello u geysan karaan dhulweynaha Ruushka. su'aasha jawaabta u baahan waxay ahayd maxay tahay sababta xilligan Faransiisku hubkiisa gantaalaha ugu ogolaanayo inay isticmaasho Ukraine xilli dagaalka Ruushka uu guur gaarayo, sidoo kalena ay Ukraine banaynaysa furimaha gobolka Kursk
si ay falanqeeyaasha warbaahinta caalamiga u sheegayaan hadalka Paris ayaa fariin u ah midnimada Ukraine laakiin waxaa laga yaabaa inay ugu talagaleen inay sii murjiyaan ama adkeeyaan arrimaha dagaalka gaar ahaan haddii ay gantaaladan bartilmaameedsan xarumaha rayidka ama kuwa istiraatijiga ee gudaha Ruushka tan oo ka dhigan isticmaalka gantaalka Paris ama dhaqaaq kasta oo military oo ka yimaada dhinaca Faransiiska laga yaabo inay keento jawaab celin xooggan oo ka timaada dhanka Moscow ayna macquul tahay inuu markaasi beegsado magaalooyin Faransiiska taasoo kordhinaysa khatarta in isku dhacyada iyo dagaaladu ay sii ballaaran karaan sidoo kale inta badan dadka u dhuundaloola xaalka dagaalkan waxay qabaan in dalalka Yurub ay mowqifkan u qaateen oo ay hubkooda ugu fasaxayaan Ukraine inay tahay in xaalka cagkirka geeyaan si uusan madaxweynaha Mareykanka u qaadan go'aan uu ku joojinayo dagaalka iyadoo uusan dhulka Ukraine ahayn mid namaanad qaad rasmi ah haysta oo dalka Ruushka ciidankiisa uu kala baxayo xiisadaha imika socota ayaa mid aad u qalafsan dhammaan dagaalku intuu socdana ka duwan waxayna tahay mid aan dhinacyadu waxba isu reebanayn oo ay cid kasta tijaabinaysa muruqeeda iyadoo dagaalkan socda lagu sifeeyay inuu yahay kala bixi ugu dambeeyay Trump ka hor maxaa la filan karaa kadib markii uu Biden qaatay go'aan in si iskiisa u garab istaagay Ukraine hubka culusna u fasaxay waxaa la galay jawi dagaal oo aan la aqoon sida loo maareyn karo iyo dhamaadkiisaba laguna kala aragti duwanaaday talaabadan oo ay qaadeen inta badan dalalka Yurub waxa looga goleeyahay in dalka Ruushka laga joojiyo isbalaarin cusub xilli la filayo inuu madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump u dhaqan geliyo aragtidiisa in cid kastaaba ay dhankeeda ku joogto dagaalkana la soo afjaro maamulka xilka ka degaya ee Mareykanka ayaa soo dusiyay in Putin uu doonayo inuu ka faa'iideysto xilli wareegista Trump taasoo ah fursad u ah inuu gacanta ku dhigo dhulka Ukraine qayb ka mid ah soo kalena ay shuruudihiisa gorgortan ka xoogaysato sidoo kale Biden waxa uu qabaa Ruushku wax tanaasula kama samayn doono meelaha uu qabsaday Ukraine waxaajood inay gasho Moscow waa mid suuragal ah laakiin taas kama dhigna in Ruushka amnigiisa qaranka wax dhaawacaya qaato tan waa la isku raacsan yahay Biden ayaa isku dayay inuu dadgeliyo taageerada military ee Ukraine ka hor inta uusan la wareejin awoodda taasoo ka turjumaysa rabitaan ah in la gaaro gul gudaha Ruushka oo loo isticmaali doono kaarka gorgortanka dambe marka uu Trump xafiiska yimaado Ukraine ay leedahay awood ay gobolka Kaariska qaybihiisa ku sii haysato muddada laga gaarayo 20 bisha Janaayo ee sanadkan ugu soo wajahan xilligaas oo xafiiska looga taliyay aqalka cad ee Mareykanka tagi doono madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump dalalka Yurub ayaa asbuucan leh shir ku toosa si ay wax kasta isaga weydiiyaan fashilka ay Ukraine la kulmayso kadib markii ciidankeeda laga soo saaray Kaariska sidoo kale shirka waxay ku soo qaadeen in Ukraine si degdeg ah loola gaaro nidaam difaaceed cusub kadib markii uu sidaas ku dhawaaqay madaxweynaha Ukraine oo sheegay haddii aan dalkiisa bisha December uu soo helin nidaam difaac cusub oo Ruushku qabsan kara dhammaan dhulweynaha dalka Ruushka ee Ukraine lana wareegi doono taasna ay dhibaato iyo xaalad culus ku tahay dhinaca wadamada Yurub iyo reer galbeedka oo NATO ay ka mid tahay waana hadda Jarmalka iyo waliba Faransiisku ay dadaal badan ku bixinayaan in shirka NATO gabi ahaantiis buu ka soo baxo qaraara in ciidamo luga loo diri karo gudaha Ukraine si ay u difaacaan madax bannaanida dhinaca Ukraine laakiin Ukraine ayaan ka mid ahayn isbahaysiga gaashaanbuurta NATO taasoo ayana muujinaysa xaaladda sina muujinaysa oo ka dhigaysa mid aan degdeg waxba looga qaban karin American International School oo xarumo kula dalka Mareykanka ayaa lagaga furay magaalada Nairobi waxa uu ku hayaa tacliin tayo sare leh oo la mid ah tan USA iyo shahaado ilmahaaga u ogolaanaysa gelidda jaamacadaha Mareykanka qabashada ardayda ayaa socota kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda